madaxda bangiga Sombank agaasimaha guud ee idman bangiga Sombank CEO-ga Saciid Cali Shire wiilkayga caaway aan taariikhdiisa u dabaaldegayno Yaxya Cabdi Siyaad marti sharafta kale ee kala duwan dhalinyarada jaamacadaha dhigta miidyada dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aniga waxay tahay farxad aad iyo aad u weyn caawa inaan la joogo Yaxye markii uu tagay waddanka Bahrain sanadkii 1990 runtii waayada waxaa waddanka ka jiray gole ay sameeyeen dad ganacsato ah oo la oran jiray golaha samafalka qaranka ama National Welfare Council waad ogeedeen waddanka dowlad dhexe ayaa ka jirtay laakiin markii 80meedii la soo gaaray dowladda awoodeedu waa iska koobnayd waddanka dagaalo ayuu maaragtay ka soo laabto dowladda Itoobiya la galay aakhirkii 70meeyadii laakiin dowladdu waa isfurfurtay ayuu bulshada ayaa waxay u ogolaatay inay is-abaabusho si qaab rayid ah marka abaabuladii waaga la sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa golaha samafalka qaranka ama National Welfare Council oo ganacsatadii waddanka ugu xoogga badnayd oo dadka anigaan ka mid ahaa ay soo gaareen dhalinyarada laga yaabo inaysan soo gaarin sida ganacsada waa dhinteen intoodii badnayd Uunlaaye Gentleman Saalax Lamaane Xasan Dhimbil waa nool yahay weli ayaa is abaabulay waxay la shaqayn jireen marka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo markaa arrimaha bulshada qayb ka mid ahayd samafalka golaha markii la sameeyey ayaa waxaa laga sameeyey ururo dadka baahiyaha gaarka qaba uu isku daya inay u adeegaan ururka marka waxaa ka mid ahaa ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed oo la sameeyey 1988 ururka marka wuxuu isku dayayay dadka aragga naafada ka ah iyo dhaqaatiirta ka shaqeysa aragga iyo macallimiintaba inay isku yimaadaan oo bal la isku dayo in maaragtay dadka maadaama bulshada ay ka tirsan yihiin oo sida haddaba Yaxye uga sheekeynaya cajaladiisa qofka aragga hadduu ka tagay macnaha qalbigiisa waa joogaa aqligiisa waa joogaa weliba waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah qofka maadaama aragga hadda weliba waxaan ku jirnaa digital era ama maaragtay mobile waxaa laga yaabaa markii araggaagu furan yahay distraction badan inuu kugu dhaco oo maaragtay waxyaabo badan ay maskaxda kaa mashquuliyaan laakiin qofka aragga naafada ka ah concentrationkiisa ama garaadkiisa waa ka sarreeyaa qofka kaleeto maadaama mashquul badan oo visual ah uusan ku dhacaynin marka diinta islaamkana waa qabtaa qofka maaragtay meesha laga indhabeelo qalbiga inay tahay laakiin aysan ahayn aragga sida ayadda qur-aanka ay noo sheegaysaba fainaha laa tacmal absar walaakin tacmal quluub allatii fi suduur suuradda cabas haddii aad darastana waa dareemaysaa nabigeenna oo ahaa macsuum in ilaahay uu ku canaananayo mar laga dareemo xoogaa inuu maaragtay dad lacag lahaa oo isla diinta xoojinayaan oo waqti siiyey asagoo dad indhoolayaal ahaa laakiin muuminiin ahaa xoogaa ka mashquulay marka ururka waxaan ka mid ahaa dadkii dhaqaatiirta ahaa oo markaa la shaqayn jiray Soomaaliyana kama jirin dugsi lagu tababaro dadka aragga naafada ka ah nasiib wanaag waxaan ka qayb galnay maharajaan loo qabanayay dadka aragga naafada ka ah oo ka dhacay waddanka Qatar magaaladiisa Dooxa 1988 maharajaanka fanaaniin ayaa jiray oo Soomaali ah oo aragga naafada ka ah Axmed Abubakar Al-Amaari nin la oran jiray oo ka mid ahaa fankaas ayaan uga qayb galnay maharajaan wuxuu ahaa wadamada carabta oo dhan isku timid halkii ayaan waxaan kula kulannay gabar madax ka ahayd macadka Al-Nuur ku yaala Bahrain Macahad Al-Aqliimi
الأورنج regional هنا لو قلت لك جلي ودمنا كلودن واجوجين ودن كسومالي كليه ayaa ka maqnaa Jabuuti xataa dad u joogay halkaas ayaa gabadhii gabar fiican ahayd markayna dareentayna wafdi Soomaaliyeedna waa nala soo xiriirtay waxay tiri Soomaali waa ka maqantiin laakiin xuquuqa ku leedihiin waa u soo diri kartiin dad dhalinyaro ah aragga ka maqnaada laakiin maskaxdooda aqligoodan uu joogo oo aan u sameeyno maxaan ku raadaa tababar iyo dugsi si bari ka maalin ayagana wax isku taraan ummadoodana wax u taraan waa soo laabanay wadanka markaan nimid waxaan sameynay ogeysiis iyo baaq idaacadda raadi muqdisho laga sheegay oo maaragtay loo yeerayo qoysaska haysta ilmaha aragga naafada ka ah in maaragtay ay jirto fursad 9 deeq waxbarasho oo wadanka Bahrain lagu tagayo laakiin waxaa loo baahday ilmaha in lagu sameeyo baaris caafimaad maxaa yeelay qofka maadaama wadan kale loo diraayo araggii ha ka maqnaado laakiin in maskaxdiisa iyo aqligiisa caafimaadkiisa kale inuu joogo oo maaragtay inuu yahay qof wax la bari karo in la ogaado ayay ahayd marka aniga ayaa la xil saaray inaan screening-ka aan sameeyo waa u sameeyay dufcaddii hore Yaxya ka mid ahayn oo 1989kii baxday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Faarax Lunge Cabdiraxmaan gacanta waa taagi kartaa Cabdiraxmaan waa kaasa asagana caawa nala joogaa asaasna haddii fursad la helo ka sheekayn doona inkastoo caawa iska leeyahay Yaxya laakiin waxaan doonaynaa cuntada marka lagu keeno bariis iyo hilib kaliya ma goosaar u baantaana marka qaybta goosaartaan nahay oo waxaan rabnaa context-iga iyo xaaladda iyo in maaragtay aan ka sheekayno laakiin Yaxya ayaa caawa iska leh asagana waqtiga badan aan siin doonaa haddii la yiraahdo sagaalkii caruurta ahaa oo marka hore aan ka haynay hal gabar iyo 8 wiil ayay ahaayeen markii Bahrain la geeyey 2 ka mid ah ayaa la qabsan weysay oo noloshaas cusub waa dareemi kartaa qoysaska Soomaalida isku mid ma ahan markii ilmaha aragga ay beelaan qoysaska qaarkood waxay u noqonayaan wax la yiraahdo protective ilaalin ay u galayaan guriga kama soo saarayaan qolka ay ku jirayaan marka 2 ilmood oo kamid ah oo maaragtay ku dhacday inay la qabsan waayeen deegaanka ayaa jiray oo sanadkii waxbarashada markuu dhamaaday dib loo soo celiyay oo macadku yiri labadaas laba kale ku soo bedela nasiib wanaag labadii haddana waxay siinay Yaxya iyo wiil kale oo saaxiibkiisa ah Cusmaan la oran jiray ayaa ku guuleystay Yaxya sidaas ayuu markaa dufcaddii labaad ayuu noqday oo maaragtay booskii buuxisay saas ayuu ku tagay maalintuu tagay marka waxaa xasuustaa xaafadda Tokyo dadka waxaa maleynayaa badankooda inaysan aqoonin Tokyo-in badanaa jira xamar Tokyo oo ka sheekeynaa waa mid howladaha ku taala oo maaragtay wadada howladaha iyo wadada Burundi ama maaragtay 21 November ama magacyo kaleeto loo yaqaan oo kasoo degaysa raadi Muqdisho inta u dhaxaysa Tokyo la yiraahdaa halkaas ku noolaan jiray Tokyo kale oo Sanca agteeda ku taalana waa jirtaa anigu dadka xamar waxaan ahaa ku dhashay kuna soo koray marka xamarta cusbaan aqoon laakiin tii hore si fiican u aqaanaa marka maalintii uu tagayay runtii ma sahlanayn waa dareemi kartaa hooyadiisu hadda ka sheekay cajaladiisa si fiican baa waqiinay Allah u naxariisto Ambara Xuseen Haaruun ayaa la oran jiray hooyo marka la yiri ilmahaagii 7 sano jiray oo aragga naafada ka ah ayaa laga kaxeynaya ma sahlana runtii hooyin badan oo Soomaali ah ayaa maaragtay aysan u sahlanayn sagaalka caruurta oo aan kaxeyno adinka si kala dhaafay ilaa 50 caruur ah ayaan ka qaadnay imtixaanka qaar badan imtixaanka ku guuleystay waxa way waalidkood ayaa diiday in la kaxeeyo oo yiri lama kaxeynayo laakiin Yaxya hooyadiis way ogolaatay sida ayaa lagu kaxeeyay wixii intaas ka dambeeyay waxaan maleynayaa asaga ayaa idin la wadaagay taariikhdiisa Bahrain marka
dagaaladii ayaa dhacay dagaalka hadduu dhacay aniga nasiib wanaag waxbarashaan waxaan ka helay waddanka ingiriiska UK carabtana waa taqaaniin oo dhaqankooda waxaa ah ilmaha markay gaaraan 18 sano ama dugsiga sare ay dhammeeyaan iqaamada waa ay ka tirtiraan ama waa ka kansalaan waxay diidayaan maadaama waddamo yaryar ay yihiin in dadka ajnabiga ku bato marka sharcigu u yaallaa wuxuu yahay haddii ilmuhu 18 sano ay gaaraan waa inay waddanka ka baxaan haddii adiga aad ka shaqaysatid xataa waddamada carabta oo qaliishka ah oo ilmo ay kugu dhashaan iqaamada ayay kula leeyihiin laakiin 18 maalintay gaaraan waxay ku leeyihiin adiga waa joogi kartaa waa shaqayn kartaa laakiin ilmihii waa inay ka baxaan arrintii markay dhacday ninkii ugu weynaa markaas hadda ingiriis ku jiraa cabdalla diirsha ayaa la yidhaahdaa gabadhii ka ahayd mudiirka ayaan xiriir lahayn waa ila soo xiriirtay anoo ingiriiska jooga waxay tiri ilmihii soomaaliyana meel loo celiyo ma laha dadkoodii lama hayo ilmaha sagaalka waxay ka kala yimaadeen gobollada soomaalida oo dhan tracin uma ahayn adig keliyaan ka ahaynaa contacti sidii ayaa markaa nasiib wanaag waxbarashaan u helay waxaan bilaabay inaan marka ingiriiska aan geeyo cabdalla noogu horreeyey cabdalla xagguu yimid cabdiraxmaan waa ninkaa fadhiya ayaa ku xigay asana sanadka dambeeyuu yimid sidaas ayay ku tageen ingiriiska liibaan nin la yidhaahdaa jira xaawaa jirta yaxya maadaama dadku ugu yar u ahaa mar dambe ayuu ingiriiska yimid asagana oo dugsiga sare u dhammaystay waxbarasho halkaa ka galay cajaladda runtii kama muuqan laakiin waxbarasho heer jaamacadeed koowaad iyo labaad ayuu ka galay wuxuuna ka soo sheegaya saa ka sheekayn doonee waddamada ingiriiska iyo imaaraadka markii ingiriiskaan joogay waa kulmi jirnay waa u yeeri jiray xaafaddeeda ayay imaan jireen hadda laakiin maadaama aan ka soo tegey waxa weeye waa kala lunsaneen 2003 ayaa cabdiraxmaan faarax waa lunge oo waddanka dib ugu soo laabtay asagoo wax soo bartay halkaas ayaa marka waxaan ku wada asaasnay dugsigii ugu horreeyey la mida dugsigaas baxrayn la yidhaahdo alnuur school for the blind ama dugsiga dadka aragga naafada ka ah ee alnuur ee magaalada muqdisho ra'yiga cabdiraxmaan ayaa iska lahaa anna waa ku taageeray waa shaqaynayey waa la soo kufnay waa la kacnay nasiib wanaag hay-adda hormuud salaama foundation ayaa ku soo baxday oo hadda runtii maamulkiisa iyo maalgelintiisaba gacanta ku haysa ilmo badan oo soomaaliyeedna oon rajaynaya qaar ka mid ah caawa inay halkaa nala fadhiyaan ayaa ka soo baxay oo jaamacado iyo maaragtay shaqo iyo howlo kala galay waxaan markaa uga dadaalkaa dheer waxaan kaloo ku faraxsanahay mirihii in maantay ay joogaan in jiilkii waxaan soo barnay jiil kale ay waxbarayaan waxaan kaloo ku faraxsanahay yaxye oo af soomaaliga xataa xoogaa uu gabaabsi ku yahay inuu go'aansado inuu waddankiisa dib ugu soo laabto iyo sidoo kaleeto bangiga Sombank oo soo dhaweeyay yaxye xafladdan caawa noo qabtay runtiina ah bangi Soomaaliyeed una adeegaya Soomaaliya hoggaan maaragtay Saciid oo muddo dheer aan isgaranaynana oo hoggaan ka yahay asagana ugu hambalyeynaya waan ugu mahadcelinayaa dareenkaas bulshadeed oo bangigu leeyahay marka fursadda la siiyay caawa inaan ka hadlana waa ka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa yaxye inuu wax badan la wadaagi doono dhalinyarada kaleeto ama asaga duruufihiisoo kale la nool ama kuwa kaleeto aan la nooleen oo araggood u dhammaystiran yahay laakiin laga yaabo inay xoogaa jahwareersan yihiin oo isleeyihiin waxaa qaban kartid ma laha maadaama waddanka duruufihiisa dhaqaale ay iska xadidan yihiin marka waxaan rajaynaynaa kulankan inuu ka soo baxdo dhiirigelin isbarasho ayna noqoto kulankii koowaad kii ugu dambeynaysa noqon halkaan ay ka soo baxda runtii dhalinyaro iskaashanaysa kii maaragtay baahi gaara qabi kaan qabinba kala faa'iidaysanaysa mid walba taariikhdiisa
ay noo noqonayso wax maaragtaan ka shidaal qaadano oo maaragtay dhiirigelin noo noqota yaxyana waxaan rajaynaynaa waddanka si rasmi ah ugu soo laabta haddii la yidhaahdo oo maaragta hadda shaqada ugu weyn oo asaga sugaysa waa laba qaybood qayb taariikhdiisa inuu la wadaago dhallinyarada inuu tababaro siiyo waa nin aqoon-yahana taariikh keliya maahan oo ku takhasusay maamulkii maaraynta xuduudda kaadirka shaqaalaha HRM waxa la yidhaahdo health resources management oo maaragtay mentoring iyo ku jirto inspirational maaragtay speaking shaqadaas asagaan ka rabnaa annagana waxaana laga rabaa in af Soomaaliga aan barno waxaan rajaynayaa aniga asaga inaan maalin Tokyo aan dib ugu wada laabanno haddii la yidhaahdo oo halkaas aan maaragtay taariikhdii aan dib ku xusno haddii la yidhaahdo marka intaas ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan xuso marwadayda Canab Xuseen وأيضاً التاريخ ذا قيب كاه وما سنتي وبالله التوفيق. Dolmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigenu wa caafimaadkaaga.